laga yiraahdo gobollada maqan ee Puntland waxaan maqli jiray ama mararka qaarkood aan dhageysan jiray marka lagu jiro campaign-ka in nin walba oo markaas taagan oo sharaxan oo yiraahdo dhulka waa soo celinay maanta waxaan aaminsanahay inay fursad u tahay in dhulkaas maqan oo midnimada Soomaaliya iyo wadajirka dadka Soomaaliyeed astaan ah waxa ugu weyn oo ka soo baxa inay noqoto dhulkaas sidii loo soo celin lahaa waxaan ka arkaa wadajirka Soomaaliya midnimada Soomaaliya iyo kuwa doonaya inay rabaan Soomaali inay kala qobaan kuwa doonaya inay Soomaali kala gooyaan ayay u noqonaysaa cashar ayay waxay u noqonaysaa inay ka samraan waxa ay ku haminayaan madaxweyne waxaan kugu tabayaa geesinimo waxaan kugu tabayaa hoggaan wanaagsan aqoon baan ku leeyahay saaxiibnimo ah waxaan ogahay oo ku kalsoonahay kartidaada adiga iyo golayaashaada iyo madaxweyne ku xigeenkaba garab baan idinku siinaynaa wadajirka iyo midnimada dadka Puntland aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi